Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan rabaa inaan halkan idinkula wadaago hal mahmaah ee ka mid ah mahmaahyada ugu caansan Soomaalida dhexdeeda. Laakiin badanaa dadku aysan fahamsanayn ujeedka iyo dulucda mahmaahda. Mahmaahda waxaan filayaa inaad wada taqaanaan, waxaana la yiraahdaa aabahay baa geel leh anaa dameer laa karoon. Ujeedka ama dulucda mahmaahda waxa weeyaan hantida dhabta ah qofka ay uu sheegan karo ama uu ku faani karo waa mid asaga u dhiiday ee uu samaysto dadaal iyo xoogna u geliyay. Ma ahan inuu ku faano hanti asaga ka baxsan sida hooyadii iyo aabihii iyo walaalkii inay leeyihiin oo kale. Marka isku day waxaad adigu leedahay inaad ku faanto tabcatood sheegato ha isku dayin wax adigu aadan lahayn in aad sheegato kuna faanto amaba aad niyadaada ku qanciso inaad adigu leedahay. niyo shaqaysan ku leeyahay walaashay ama walaalkay waxaan rabaa inaan halkan idinkula wadaago maanta mahmaah ka mid ah kunka mahmaahood ee Soomaalida dhexdeeda ugu caansan. Mahmaadan waxay leedahay aabow kan weyn iida ka yar iga celi. Dulucda ama ujeedka mahmaadan waan filayaa inaad isla wada fahmi doontaan ama aad wada garan doontaan waxa lagala jeedaa qofka yarka ah qofka weyn wuxuu dareemi karaa in badan inuu ixtiraamayo ama uusan isu quurin inuu ilmaha yarka dilo. laakiin kan asaga la ayniga ah ee da'diisa inuusan waxba u reebinin ee beerka uu ka laadayo kaliya mahmaadan looma sameyn kara macnaha asaga ah ee dagaalka iyo ciyaalnimadee dhan kalena waa laga eegi karaa. had iyo jeer waxaad u eegtaa qofka aad ixtiraamto ee in badan aad tixgeliso ee wanaag aad maaragtay aad u hayso inta badan adigana wuxuu qodqodaa wixii adiga maaragtay xumaantaada ah amaba aadan ahayn uu kaaga been abuuranayo. intaa waxay iga tahay isxasuusin iyo isbaraarujin dhaqankaaga iyo hidahaaga iyo murtida iyo mahmaahda inaan maaragtay maankan ku haynay ee aanan ka tagin ayaan idin soo bandhigayaa. waan ku mahadsantihiin daawadashiina. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaalkay ama walaashay biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waxaan rabaa inaan halkan kugu soo bandhigo hal mahmaah oo ka mid ah kunka mahmahood ee Soomaalida dhexdeeda ugu caansan. mahmaadan waxay leedahay bani aadamka daba la xiriiriyo ma lahan ee dibna la xiriiriyo ayuu leeyahay. ujeedka ama dulucda mahmaahda waxa weeyaan xoolaha waxay leeyihiin sayn la isku xiro gaar ahaan awrta hal qof ayaa wuxuu awoodaa inuu 10 ama ka badan uu isku xiriirsado oo midka ka horeeya uu sayntiisa intuu ku xiro sidaa kan u hore asaga uu hogaamiyo. bani aadamka daba sidaa ma ahan ee bani aadamka dibna la xiriiriyo ayay leeyihiin oo macnaheedu ay tahay wanaag iyo sharaf iyo ixtiraam iyo waxsiin iyo wax wanaagsan oo walbo in bani aadamka lagu xiriirin karo. maanta markii aan si wanaagsan kula hadlo wax wanaagsan aan ku siiyo ama tala ama dheef waxay noqotaba wax xaqiiqa inaad ugu xirnaanayso oo jeclaanayso mar walba inaad wax ila wadaagto. laakiin marka xumaato iyo wax walba aan kugu wanaagsanin aan kugula dhaqmo ma ahaanayso qof igu xirmo. walaashay ama walaalkay insha Allah biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waxaan rabaa caawina halkan idinku soo gudbiyo hal mahmaah ee ka mid ah kunka mahmaahood ee Soomaalida dhexdeeda ugu caansan. mahmaadan waxaa la yiraahdaa aan wada hadalno waa aan heshiino. aan wada hadalno waa aan heshiino. macnaha ama dulucda mahmaahda waxa weeyaan qofku hadii marba uu doonayo in wada hadal uu idin dhex maro oo wada hadashaan qofka wuxuu diyaar u yahay in aad heshiisaan waxna aad wada qaybsataan. sida la jeedo marka hadii even ay dhacdo inaad qof isku dhacdaan ama ay wax idin kala dhex galaan qofka asaga hadii uu ku yiraahdo walaalow inaan wada hadalnaa rabaa xaqiiqatan qofkaas waa qof dulqaad badan oo caqli u saaxiib ah ahna qof Ilaahay ku xiran. sida darteed waxa weeyaan marka waa inaad ajiibto oo adeecdo waxa uu qofkaas uu ku leeyahay way hadalkan aad ogolaato kadib si uu u dhasho isfahan iyo iscafin iyo maaragtay in wax walba maanta la isla qaadaan dhigo. marka insha Allah biidnillaahi tabaaraka tacaala intaas waa iga xasuusin waxaan ka wadaa ujeedkeeduna uu yahay in maaragtay aad mahmaayaha murtida iyo maaragtay wax walba ku saabsan af Soomaaliga in aan maaragtay aan isxasuusino oo ka war hayno dhaqankanagi iyo maaragtay murtidinadii iyo mahmaayahanagi aanan hilmaamin. waan salaamay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaalkay ama walaashay insha Allah biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waxaan maanta idin soo bandhigi doonaa hal mahmaah ee ka mid ah kunka mahmaahood ee Soomaalida dhexdeeda ugu caansan. mahmaadan waxaa la yiraahdaa aano in adeer baa u dhinto. ujeedka iyo dulucda mahmaadan waxa weeyaan haddii aad adiga maanta dambi gasho ama qof aad disho ama aad maaragtay hanti dhacdo ama aad xaddo waxa weeyaan adigii haddii aad dhuumato ee lagu waayo waxaa loo aanaystaa ama laga gutaa ina adeerka. sidaa darteed marka insha Allah biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waxaan rajeynayaa wax adiga aad samaysay inaan loo qabsan doonin ina adeerka ee mar walba aad is ilaalin doonto. ujeedka aan ka leenahay inaan soo bandhigno mahmaadan waxa weeyaan inaad mar walba aad ku sugnaato wanaag iyo dhowrnaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.